السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أصحابتي كسر دوّده ويوتيوب channel ولكن كاريا فيلمز and flowers. ما توح ربا إن كهذا يا ريحي بي يا ريحي بي هذا ريحي بي وضع ريحتك بي مركب حويه كلمة السوشيال ميديا قبضتي يا ريحي بي أما كلمة ساخنا كلمة علامة بي باركينج oo social media gaal islaam ba wada qabsatay in kastoo Soomaalidu ay haysteen kaliya Soomaalidu sar dhex maraso oo maadaama loo turjumay Soomaali la dhahay yaa riixay bi meel walba lagu qorayo dad badan ka waray wax isweydiinayaan Soomaalidu maxay waxa ku keentay kelmadii wala isweydiinaya madax xanuun ma garad hadaba hadii tahay markii koowaad channelka isku arkano fadlan subscribe sar like tana video gana sar kula soo dhawaada marka waxaan jeclaystay in kelmadan ka hadlo kelmadana wax noqotay kelmad qaraxday oo viral ka noqotay dhamaan social media caalamka ma kaliya Soomaali ha isooran kaliya Soomaali ba kelmadan wadato inagu jarjartay meel kasto caalamka kamid ah hadda qabsatay saan sheegay dad badan naga mid ma garanayaan macnaheeda meeshay ka timaaday cidii soo galisay social media hadaba kelmadan caalamka qabsatay yaa riixay bi ama hubushin bi iyagu waliba caalamku Soomaalidu committee kaliya ku soo qoraysay sawirada halka ka aragtaan oo dhabaad social media qabsaday qof kasta oo meel kasto calaamada biid ku taalo oo wadooyinka iyo meelaha badan ku taala ama parkinada iyo meelaha marka la galayo sidoo soo riixaya ay social media soo dhigayba hadaba kelmadda waxay horta marka hore ka timaaday waxay ku jirtaa hees ama album uu soo qaaday fanaanka la dhaho Ghana oo album soo saaray oo la yiraahdo DS Forever ay ku jirtaa hees kamid ah oo fanaaniin kale la qaado heestaas waxa ku jirtay yaa riixay bi oo kelmadaha soo aad ugu celiyay ku jirtay heesta marka ka bacdi dad nin kale oo dadkan caanka ka social media ama nin kale oo dadkan saameynta la Mareykanka wariye ayaa kelmadii social media kala keenay TikTok oo kale soo isweydiinaya yaa riixay bi ama kelmadii inagu la dhaxarin meel walba kelmadii dhamaan caalamkiiba qabsatay maadaama dadka hal abuura horta moodin Soomaalidu waxa ma hal abuurto adag in Soomaaliya la arko kelmad caalamka galiyay qabsatay way tirsayin badii waxaba malaw marka laga reebo heestii inanteen baahabi iyo marka laga reebo Soomaalidu saameyn saasa caalamku kuma laha wala og yahay di luqadeena way ba adag tahay in la fahmo oromada adeed aragteen oo 10 sano markii la joogtaan marna fahanteen marka kelmadda horta waxa xagaas ka timid Mareykan bay ka timaaday ninka raabarka bay ka timaaday caalamka oo dhan baa laga dooqay macnaheedu dadkan oo dhan soo qoray caalamku ma faahsana isagii baa lagu diheeray noqotay in raabarka dib uga soo jawaabo oo inta la soo galo uu ka jawaabo su'aashii isku dayo waa saaysan ka wada macnaheedu waa sida cid riixda wata uu yiri koortaas la isticmaali kartaa oo su'aalo badan ka sheegay caadiyan kelmadda p ama yaa riixay p waxa laga wadaa horta p marka sida loo macneeyo oo loo eego macnaha guud ee yeelan karto kelmadda p waxay noqon kartaa player ama hadii aan si kala dhigay qof shaxaariya ninka markuu shaxaarigii hablaha maaragtay saa kala dhaxarade ku ciyaarada adigu ayaa la yiraahdaa player marka kelmadda horta caadiyan wata talooga jeeda maaha laakiin caadigeeda marka p waxa loo soo gaabiyo waa player saasoo tahay kelmadii imaka meesha ugu ma jirto player ahaan waxay uga jirtaa oo macnaheedu guud intaas laakiin hadda waxa loo isticmaalayaa waxyaabo badan marka raabar ku jawaabay waxa uu dhahay kelmadda waxyaabaha qaar waqtiyada isticmaali kartid waa waqtiga waxyaabaha isticmaali kartid waa waxaas diiwaan isagii ali hadii ay jiraan waxyaabo kale oo loo adeegsado oo gooniya oo cidna u sheegin aan cidna soo ogin waa arin kale laakiin waxa ka wadaa sida hadda ilaa hadda la hayo ama dadka caalamka ay isku raaceen inkastoo commentiyada isagiisa loo soo qoray ayna ahayn oo dadku dhan lahayn war wax kale uga jeedaa adigu ma riixdeedaas u lahayn biida ma riixdeedaas u lahayn oo dadkii ay adkeed bayna aqbalaan ama ay dhigistaan haddana saas ay tahay waxyaabo ku macneeyay waxa kamid ah horta wuxuu macneeyay waxa in kelmadan looga jeedo waxyaabaha positive ka loo isticmaali karo marka positively tusaalahaan oo kale marka wax wanaagsan qabsato tusaalahaan oo kale markaad maanta saacad qaaliyeed iibsato waxaad aad u rabtay moogti oo intaas oo kuna doolar ku iibsatay waxa oran kartaa waxa riixay biiba oran kartaa markaas oo kale waxyaabo sheegay maaragtay in loo isticmaali karo tusaale uu soo qaatay saacada rool laga soo kala qaaliy markay iibsatay waxa riixay bi hadii beel xeebo oo dalxiis u tagto qurux badan oo fiiga iyo wax walba yaabaysid soo kale wax oranaysaa waa isticmaali kartaa kelmadda laakiin adoo waxyaabo xun ama istubarnimo ama waxyaabo dhaqan xun oo sameeyay ma oran kartid
marka taas waxay macnaheeysaa dad badan oo u qaadanayay kelmaddan p macnaha si kale u macnihiisan Englishka oo lahaa p waxa laga wadaa kelmadda saaysaasa oo halka xumaanka geliyay isna wuxuu taagan yahay kelmaddu haddii negative gasho ma aha lama isticmaali kartid halkaas ka harsa saasay tahayna dee qof kasta inuu meel walba ka soo dhaho ma aha inuu leeyahay meel walba ku xaq soo qortaa yaa riixay b oo commentiyada social media waa qaribteen Soomaalida inuu waliba ka daran wax qabanaya Soomaali ma leh haddii la yiraahdo halkaas baanta dhanbi ku wadayaan mugti waad arkaysaa qof dhan oo kun qof oo comment soo bixi kun ku wax ka hadlo wixii soo qoraya yaa riixay b arrinka muhiimka ah tahay qof kasta oo kelmadan social media ku wareerisay ama isaga laftiisu isticmaalay ay tahay inuu ogaado warta baasha kelmadiyaan meel kasta loo isticmaalo inta marka la sheegay ah in positive loo isticmaalo macnaheedu guudna uu b yahay player ama shahaari uu yahay si fudadan Soomaaliyan ku eego waxa shahaari noqonayso soo waa shahaariye yaa riixaydaas maanta dhan ha oran wax kale oo ku duwan oo kale de wixii inay ka dhigin imka caalamka oo waxyaabo laga qeylay waxa kamid ah ama commentiyada lagu soo qorayo meelaha public oo dadka caanka waxyaabo loo soo qorayo kelmadda dhibaatada laga sheegay waxa way carruurtii oo dhan ma aha in kaliya carruurta caalamka cadaan ka raay masaakiinta ba waxay ka dhigtay hooyada kullu yaa riixay b marka inagana inay naga dhigin uu baasha kelmadda hadii oo si fiican in fahmo weyno ama aynan noqon wax inaga inoo munaasiba meel kasta yaa loo isticmaalay TikTok na ku ekaato YouTube soo gelina baasha hadda xitaa wadasaan meelaha TikTok in lagu daayo yalla fafka TikTok yaa riixay b u soo qora halkan laakiin laga daayo YouTube ka Facebook ka social media kale waxaan jecelahay horta wax saawsi adag ma haynin la fahmaa oo waxay ahayd in kaliya macnaheedu guud oo ah player oo ah shahaari iyo waxyaabo looga jeedo oo kamid ahayd in waxyaabo positive ka loo isticmaali karo oo soo isticmaalayo lahaa wixii positive ah wixii waxaan aad u rajeynayo sameeyay ayaan isticmaalaa inaad riixdi markaa p oo macnaha halkii la rabay ayaan la helay oo kala day halkii la rabay baan la helay iyo waan asiibay iyo saas Soomaaliyan hadaynu eegno ayuu saas u dhigay fanaanka caanka ah ama xidiga weyneed ee gaalada xidiga u ah ee gaana la dhaho raabarka marka waxa rajeynaya inaad maadaama video koobnaa rabay inuu kelmadda yaa riixay p oo social media qabsatayna ka hadlo haddii halkii la soo gaadhay fadlan macnaheedu waa tahay sheegay like sar videoga asxaabtada kale la wadaag subscribe hadda videogiisa artiina kulli waxyaabo badan oo kale weyn kala faa'iideynaa ka wada hadli doonaa waana salaam dhamaantiinba kale